waa munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaalida taasoo daarnay soo dhaweyn ay soo dhaweynayeen safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalka Canada waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi soo dhaweynta ah safiirkii hore ee dowladda Siyaad Barre u fadhiyay dalka Canada mas'uuliyiin siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada ayaana u kala hadhin soo dhaweynta safiirka cusub ee dalka Canada u soo magacowday dowladda Soomaaliya waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya laga soo bilaabo burburkii Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay inaanay wax safiir u magacaabin dalka Canada haddaba jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada oo munaasabadaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda iyaga oo ka hadlaya soo dhaweyn iyo taageero u muujiyay safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalka Canada iyaga oo la hadlaya TV-ga SSD ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa maanta xafladda haddaan kaaga warramo xaflad aad u fiican bay ahayd xaflad noogu wanaagsan injineer Orowa waayo markii ugu horreysay oo safiir loo soo magacaabo Canada oo especially magaaladeennii Ottawa oo joogo runtii farxad aad iyo aad u weyn ayaan kala kulannay xafladdan safiirkana waan garab taaganahay waayo waa qarankeeni ayuu matalayaa Soomaaliya dhammaan inta Soomaaliya u haysa insha Allah wixii uu u baahan yahay talo taageero dhinaca dhaqaale wax walba insha Allah jaariyadu way ballan qaaday insha Allah garabkiisa istaagi doona waxaan dhammaan naftayda idinka baraarujinayaa in wixii talo iyo wixii tayo iyo wixii lacag aynu u garab istaagno in safaaradda maanta Canada laga dhisay sida ay tahay ugu soo dhaweyno oo dhexda ugu xiran waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo keenay maanta bahda ACCD Media TV Somali TV aad iyo aad waxaan xaggan ku soo dhaweynay maanta ambassadorkii Dembo waan aad iyo aad ugu faraxsanahay tan iyo 19 magaalada Ottawa ee dalka Canada ambassador may helin maanta dad badan baa runtii shucuurtooda aad u kacsan tahay oo ku faraxsan in markii ugu horeysay ay helaan danjire iyaga matalo magacooda ma afla ku hadli doono aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa danjiraha heel iyo hool oo la garab joognaa waxaan leenahay soo dhawow waxaan filaynaa markaa in jaaliyaddu fariintii safiirku soo gudbiyay oo ahaa in safaaradii la garab istaago safaaraddan oo muddo 3 sano naga xirneed sharaf bay noo tahay inaan caawa warbixintaas u gudbisnay ka jaaliyad ahaan qof walba effortskiisa wuxuu bixin karo weligeedba dalkeena waxbaan taraynay laakiin maanta dalkii oo socda la inoo keenay marka inaan xijisano safaaradii caawino sharaf ayay noo tahay kolley anigu dadka aadka arrintaa u saacidaya contribution ka geysan doonaa qof kastoo Soomaaliya magaca Soomaali sinjigiisa u dhashay meesha doona ka yimaadeen inuu arrinta garab istaago raggii jooga waxay dadka qabanqaabiyay xafladan safiirka kala kulmay jaaliyadda Orowo macnaha waxaan rabnay inaan ogaano safiirkeena ajendaha uu jaaliyadda u hayo iyo haddii aan garab istaagno meesha uu gaarsiin karo jaaliyadda Canada iyo waddankeeniba مسجكاسنا سفيرك ونوسو بدي رنتينا دت وصل طيب كلام runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa xagga imaado farxadda waxay ka turjumaysaa furitaanka iyo imaatinka ambassadorka cusub ee dalka Soomaaliya oo runtii aan isleeyahay wax badan buu kusoo kordhinayaa jaaliyadda Soomaalida Ottawa iyo Canada waxaan rajaynaynaa dad midaysan oo dal nabada oo dadkana anfaca hawlahooda guul iyo kuwa gaarkaana waxtara inuu waddanku yeesho guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ku hadla meel joogaan bay guuleystaan nabad iyo caafimaad iyo horumar ku noolaadaan waxaan salaama safiirka cusub iyo safiirka hore idinka oo dhan dhammaantiin waa idin salaama aniga Soomaaliya ka imid mardow sabti bab xamalan dinay بدنا يا الله وحبنا نوال شوية وحبنا نوصل مصر ملك خديرنا هاي شيء Somalia ونصول Somalia وهذا الرباط ستيك Somalia نربط كل أي شيء وحبنا الإنسان وكذا على Somalia ملك الهدف الأساسي هو في صوت الصناعة الله
dowladda la shaqeynaya lacagaa lagu bixiya shirka hoosaa laga shaqeeyaa waxaasoo dhan baa socda marmarja dadadina marka ooreer ilaha baran soomaali ilaha baran kudaayisha waxaan maqlaysaa iyo waxaan social media iyo youtube-ka meesha badan waxaasoo dhan kusoo duuduub hadafka waxa waaye ugu dambayn soomaaliya in dowladda meesha ka baxdo ilaahay kama dhigin hadda ka baxdan soomaaliya laga soo qalitaado ilaahay kama dhigin waxaa isaguna madasha soo dhaweynta ka hadlay sheekh cabdiraxmaan bashiir meeshan calankani waa curad calankani waa curad macnaha curadkan ini sheegaya magaalo aan agteeda ku dhashay shacala idhaahdo oo xuduudda jabuuti iyo etoobiya ku taalla iyaa dhowr iyo 60kii dadka lagu laayay dadkii meeshaa lagu laayay way socdeen waxay tageen Soomaaliya General Siyaad Barre markuu midatuwi uu qaaday iskuullada adduunka u diray muu weydiin halka ku dhalatay calanka bashiir sidoo kale waxaa isaguna madashaasi ka hadlay safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Canada Cabdinuur Yuusuf waxa aan idinka barayaa kulligiin inaad u ducaysaan ilaahay inuu Soomaaliya dejiyo cadowga inuu ka qabto kuwa caadaqaataha oo cadowga u shaqeeya ilaahay ugu dambeyntii waxaa madashaasi soo afmeeray safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalka Canada Ambassador Xasan Daahir Dambiil هذا المحسن لما يعني صوت حساب صوت وفي واحد شيء على سوق الدعم على سوق على كيلو الصناعة صفير مرة وجهي صار شيء ووجهي الصوماليات أوضح لكن عندي جالية صوماليات كلها أطول أنت إذا جمع كندا ولا يقول كندي شخصيا مصدر مثلية بالكيسة بالكيسة بالكيسة